شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء المبين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، waxaan gelaynaa oo aan bilaabaynaa suuradda lagu magacaabo suuratu luqmaan, suuratu sajda ayaan dhihi lahaa. cafan, suuratu sajda waa suurad ka mida suuradaha maka ku soo degay, inta badanna ka hadasha caqiidada, bacfiga qiyaamo, soo bixinta muslimiintii kaafiriinta sida loo kala abaalmarinayo. qof kastaa waxaa la siin doono iyo waxyaabo fara. bismi illaahi raxiim. alif waa ku cilmi badanna waan soo tilmaamana waxay ka mid aayadaha ama xuruufaha aan ilaa iyo hadda wax loola jeedo aysan dadku garanaynin, laakiin rabbi ayaa yaqaana muraadka iyo danta oo markaa kala jeeda. alif laam miim, ilaahay baa yaqaana macnaheeda iyo sida ay tahay. tanziilu lkitaabi, kitaabka dejintiisu, laa rayba shaki fiihi, gudihiisa kuma sugnaato. tanziilu lkitaabi, kitaabka dejintiisa, laa rayba shaki kuma sugna fiihi, gudihiisa. xaggee laga soo dejiyey? min rabbi alcaalamiina, caalamiinta rabbigooda xaggiisa laga soo dejiyey. caalamkan oo dhan allaha rabbiga u ah xaggiisa ayaa laga soo dejiyo. laa rayba fiihi, wax shaki ah gudihiisa kuma jiro. hortiisa baatil imaan maayo, gadaashiisa baatil imaan maayo. waa kitaab casiis ahoo xakiim ah. laa ya'tiihi albaatilu min bayni yadayhi walaa min khalfihi, hortiisa iyo gadaashiisaba aan baatil iyo waxyaabo kaloo xumaan ah aan markaa imaanaynin. sidaa darteed baa ilaahay tilmaamayaa kitaabkan dejintiisa min rabbi alcaalamiin inuu ka ahaaday. wax rayb oo shakiina dhexdiisa uusan markaa ahayn. am yaquuluuna, ma waxay odhanayaan iftaraahu, asagaa abuurtay. kitaabkiisaan ahaa, shakiga aan ku jirin. caalamkan oo dhan barbaariyahooda iyo rabbigii maamulayay gacanta ku hayay xaggiisa uu ka yimid. haddana aad ogaateen inuu mucjiz yahay. aad ogaateen jin iyo insi hadday isku tagaan inaysan la imaan karin asagoo kale, oo alif laam iyo miim aad garan weyseen. hataa intay ka gudbeen bay odhanayaan maxamed baa been abuurtay. am yaquuluuna, waxay odhanayaan iftaraahu, asagaa been abuurtay maxamed. oo qur'aankan waa iftaro iyo wuxuu asaga jeedkiisa kala yimid. bal iska daa inuu nebi moxamed dhambasho ee uu been abuurto, jeedkiisana uu kala yimaadee. huwa asagu alxaqu, waa xaqoo min rabbika, rabbigaa xaggiisa ka ahaaday. kitaabkan waa xaq buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala. rabbigaa xaggiisa ayuu ka ahaaday. litundira, inaad digtaa lagugu soo dejiyey. qawman qowm maa ataahum uusan u imaanin min nadiirin waxdiga min qablika adi hortaaba. lacallahum yahtaduuna, inay hanuunaan bay mudan yihiin, inay toosaan bay mudan yihiin.
amarka inay qaataan bay mudan yihiin. rasuulkii allah ayay ku tilmaameen inuu been abuurtay. waxay yidhaahdeen asagaa been abuurtay, bal huwa shaacir, waa abwaan, ha la yimaado, waxaana waa sixir bay yidhaahdeen. asaatiiru alawaliina iktatabahaa fahiya tumlaa calayhi bukratan wa asiil. wax kasta way ku sheegeen oo dacaayad ah, oo ay qur'aanka ku bushinayaan, oo ay rabaan ummadda inay uga hor istaajiyaan jidka ilaahay ay ka jeediyaan. saa darteed buu ilaah leeyahay am yaquuluuna, ma waxay odhanayaan, ama bal ka dhigo yaquuluuna iftaraahu, kitaabkii saas ahaa oo qiimaha badnaa oo rabbi xaggiisa ka yimid oo aan raybka iyo shakiga ku jirin. am yaquuluuna waxay leeyihiin iftaraahu, asagaa been abuurtay, asagaa la yimid, asagaa keestay. haye hadduu asaga la yimid, alif iyo laam iyo miin baad fasiri la'dihiine, ma wax isku mid ahba? way noo imaan doontaa inuu ilaah leeyahay subxaanahu wa tacaala, haddii kitaabkan shaki idinkaga jiro, wain kuntum fii raybin mima nazalnaa calaa cabdina fa'tuu bisuura. miyuusan asaga 114 suuradood uusan been abuuran, uusan la imaan saad sheeganaysaan? bal hal suurad keena, bal idinka hal xataa la imaada oo midka uu asaga uu keestay oo kale ah. isugu yeerta wax allaala waxa aad caabudaysaan alla sukadiisa, in kuntum saadiqiin. fain lam tafcaluu walan tafcaluu, haddaad samayn weysaan ood la imaan weysaan, maba la imaan kartaane, maba keeni kartaane, maba samayn kartaane. fattaqu nnaara, naarta ka cabsada. saa darteed buu ilaahay yidhi am yaquuluuna iftaraa, waxay odhanayaan waa iftaro, asagaa been abuurtay. bal iska daa inuu nebi moxamed qur'aankan been abuurtee, huwa alxaqu, waa xaq oo xaqiiqo ah oo dhab ah oo min rabbika, rabbigaa xaggiisa ka yimid. litundira qawman, qoom inaad u digtaa lagugu soo dejiyey, maa ataahum uusan u imaanin min nadiirin waxdiga min qablika adi hortaada. lacallahum waxay mudan yihiin yahtaduuna, inay hanuunaani, inay toosaanay hanuunaan ayay mudan yihiin buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. allahu ilaahay alladii waa macbuudka khalaqa asamaawaati, samaawaad ka abuuray, iyo waalarda arlada, iyo wamaa baynahumaa inta u dhaxaysaba fii 6 ayaamin 6 maalmood gudahooda yuu ilaahay ku qalqay subxaanahu wa tacaala. uma intaa kabacdi istawaa, ilaahay wuxuu ku ekaaday, uma kabacdi istawaa, ilaahay wuxuu ku ekaaday cala alcarshi, carshiga dushiisa. maa lakum idinma sugnaanin min duunihi, asaga sukadiisa min waliyin, wax weli ah oo umuurihiina tawaliya, walaa shafiicin, iyo wax shafiico idin ergeeyo wax idin tara. afalaa tatadakkaruuna, miyaana waanoobaynin? dad waana qaadanaya ma tihiin miya? dad ogaanaya xaqiiqdu sida ay tahay miyaadan ahayn buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala. ilaahay samaawaadka iyo arlada iyo inta u dhaxaysa ayuu 6 maalmood gudahooda ku abuuray. 6daa maalmood ilaahay waxaan soo tilmaamay idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun, inuu odhanayo ahaw, intaa kadibna wuu iska ahaanayaa. 6daa maalmood ilaahay ta'aniga iyo deganaashadaana la barayaa, waxaana la barayaa sida bani aadamka looga baahan yahay inay tacajulkii degdega u dhaafaan. waxaan rabnaa isla hadda waxaan doonnaa inaan helno, sabir baa loo baahan yahay. tacaajulka iyo degdega la diidaya, waxaa in badan dadka lagu guubaabinaya oo in badan dad amaya oo in aad u deganaadaan, deganaanta ay muujiyaan. ta'anigu ilaah buu ka ahaadaa, degdega shaydaan buu ka ahaadaa. insaankii waa la abuuray, waxaa lagu abuuray wax lagu magacaabo degdeg. xaaladaasaa markaa la diidayaa. 6 maalmood waan soo tilmaamay kayfiyaadka iyo sida ilaahay u kala qalqay subxaanahu wa tacaala. mar allaala markii aan maraynay suuratu fussilat ayuu ilaahay noo kala tilmaamay, qul a inakum latakfuruuna biاladii khalaqa alarda fii yawmayn, arladii 2 maalmood baa lagu abuuray. watajcaluuna lahu andaadan dalika rabu اlcaalamiin. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام وتكميل 4 أيام. waxa gudaheeda ku jirana 2 maalmood kalaa la abuuray, waa 4. ثم استوى إلى السماء وهي دقان, intaa kabacdi buu ilaahay haddana u qasday samadii ayadoo qaaca. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين. إذا 6 maalmood bay markaa isku noqotay. tiibuu ilaahay tilmaamaya subxaanaه wa tacaala. allahu ilaahi
alladii waa allihii khalaqa abuuray alsamaawaati samaawaadkii waalarda arladii wamaa baynahumaa inta u dhaxaysaba fii 6 ayaamin 6 maalmood gudahooda ku abuuray 6daa maalmood uu ilaahay ku dhex abuuray uma istawaa kadib wuxuu ahaaday uu ku sugnaaday uu ilaahay istawaa wuxuu ku ekaaday cala alcarshi istawaha carshiga la tilmaamayo wuxuu ilaahay tilmaamaya subxaanahu wa tacaala inuu nafsadiisa ku sugayo inuu carshiga dushiisa ahaaday callaa wartafac sidaa darteed baa la idhaha istawuhu waa macluum kayfiyadiisu waa majhuul in la su'aala waa bidca in la rumeeya waa waajib waa sida salafka wanaagsan ay ku tageen sidaa darteed baa lagu odhanaamay naxariistiisii baa kor noqotay wax walba wax ilaahay naftiisa ku tilmaamay yaa laga yaabaa dadku inay ka argagaxaan laga yaabaa inay dadkii si kale u tilmaamaan uma istawaa cala alcarshi carshiga dushiisuu ilaahay ku ekaaday subxaanahu wa tacaala ma naqaana kayfiyadda waa naga majhuul sideedaan u rumaynaynaa ilaahay baa tilmaamay wuxuu ilaahay isku sifeeyaad leedahay ku laguma sifayn karo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo tilmaamayaa inuu carshiga dushiisa ahaaday laakiin ilaahay marka la leeyahay waa mawjuud shay kasta ama min kulli makaan waxaa loola jeeda waa ilaahay cilmigiisa subxaanahu wa tacaala alam tara ana allaha yaclamu maa fi الsamaawaati wamaa fi اlardi waan soo marnay maa yakunu min najwa 3 ilaa huwa raabicuhum walaa 5 ilaa huwa saadisuhum walaa adnaa min dalika walaa aktara ilaa huwa macahum aynamaa kaanu meel kastay ahaadaan intaa ka bacdi ilaahay waa idiin waramayaa ilaahayna shay kasta bimaa tacmaluuna caliim aayaddu cilmi bay ku gebagabaysay cilmina way ku bilaabatay idan marka la odhanayo ilaahay shay kasta waa ama meel kasta wuu ahaaday waa asaga cilmigiisa saa darteed baa waxaa loola jeedaa sidaa ama asaga daata ahaantiisa haddii aad doonayso istawaa cala alcarshi carshiga dushiisa ayuu ilaahay markaa ku ekaaday maa lakum idinma sugnaan marka min duuni asaga sukadiisa min waliyin wax weli ah iyo walaa shafiicin wax shafeeca afalaa tatadakkaruuna miyaadan waanoobaynin yudabbiru ilaahay wuu maamulaa alamra amarka min alsamaa'i ila alardi laga bilaabo samada xaggeeda ilaa arlada uma yacruju dabadeedna wuu u koraa ilayhi xaggiisa waa amarkiiye fii yawmin maalin waa maalinta qiyaamo kaana miqdaaruhu qadarkiisa uu la eg yahay 1000 sanatin 1000 sano oo mima tacudduuna maalmaha aad tirsanaysaan oo kale markaa ah maalinta qiyaamo ballarnaanteedaana loo tilmaamaya waxaanu soo marnay inuu ilaahay tilmaamay subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaamo uma ilaahay yacruju almalaa'ikatu waaruuxu ilayhi fii yawmin kana miqdaaruhu 50000 sana 50,000 oo sano meesha wuxuu ilaah noogu tilmaamayaa fii yawmin kana miqdaaruhu 1000 sanatin waxay mufasiriintu yidhaahdeen waxaa loola jeedaa halkii mawqifba 1000 sano ayaa la taagnaanaya oo markaa la eg yahay mawqifyada la istaagaya ayaa fara badan oo laga yaabaa in 50 mawqif uu noqdo 50kii mawqif oo mid kasta kun la istaagayo saa darteed bay noqonaysaa 50,000 sana 1000 sana waa halka maree istaagayo aayadda aan soo marnayna waa mawaaqifta oo dhan darteed buu ilaahay subxaanahu wa tacaala amarka ka soo maamulaa asagoo carshigiisa dushiisa ah min alsamaa'i ila alardi laga bilaabo xagga sare ilaa arlada uma yacruju waxaa u kora ilahi xaggiisa amarkii fii yawmin maalin kaana miqdaaruhu qadarkiisa iyo qiyaastiisii inta miqdaar ahaan uu yahay 1000 sanatin ay tahay 1000 sano oo mima tacudduuna ka aad tirsanaysaan ah daalika macbuudkaasaa wax u kala maamulaya waa caalimu lgaybi gaybka caalimkoodii iyo washahaadati waxyaabaha xaadirka ahba alcaziizu waa alla casiis ahoo amarkiisu qaalib yahay alraxiimu oo naxariis badan subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala waa gaybka caalimkoodii iyo wax allaala waxa muuqdaa sida gaybka shahaadada uu u og yahay iyo qaybka ilaah u og yahay subxaanahu wa tacaala waxaa isugu mid ah ilaahay waxa la qarsaday waxa la muujiyo sawaaء minkum man asara alqawla waman jahara bihi waman huwa mustaqfin billayl wasaaribun binnahaar intaasoo dhan ilahay baa yaqaana subxaanahu wa tacaala waa isugu mid wax kasta oo ka qarsoon ma jiro ilaah wuxuu og yahay caliimun bidaati suduur waasiruu qawlakum aw ijharuu bihi inahu caliimun bidaati suduur war wax qariya ama muujiya laabta waxa fadhiyo ilaah yaqaana subxaanahu wa tacaala saa darteed buu ilaahay noo tilmaamayaa dalika caalimu lgaybi
kaasi waa qeybyaalka iyo waxa maqan oo dhan caalimkoodii waa allah waashahaadati iyo waxyaabaha muuqdaba alcaziizu waa alla casiis ahoo amarkiisu qaalib yahay alraxiimun haddana naxariis badan alladii waa macbuudkii axsana wanaajiyey kulla shayin shay kasta khalaqahu abuurkiisa wax walba markaad dib u eegto khalqigiisa iyo sida alla ugu talagalay ayuu ku qabwacan yahay bini aadamka markaad fiiriso sida ilaahay u sameeyey markaad fiiriso bisada qaabkay u samaysan tahay waa khalqigan u fiican markaad fiiriso xamaaratada ama kuwa caloosha ku socda ee xamaaranaya dhulka saa u soconaya waa ku qaab wanaagsan yihiin sidaa darteed ilaahay axsana kulla shayin khalaqahu abuurkiisa ayuu wanaajiyey wabada'a wuxuu ka bilaabay khalqa alinsaani insaanka abuurkiisa min tiinin dhoobaa laga bilaabay aadam ciid baa laga abuuray aadam dhoobaa laga abuuray aadan waxaa laga abuuray min salsaalin min xama'in masnuun aadan waxaa laga abuuray min salsaalin kalfakhaar aadan waxaa laga abuuray min turaab aadan waxaa laga abuuray waxaasoo dhan waxay tilmaamayaan insaanka khalqigiisa bilowgiisa ilaahay ciid buu ka dhigay subxaanahu wa tacaala waa nebi aadam wabada'a wuxuu ka bilaabay khalqa alinsaani insaanka abuurkiisa min tiinin dhooba xaggeeda uma intaa ka bacdi jacala ilaahay waa yeelay naslahu farciisiina min sulaalatin wax lasoo miiray oo min maa-in biyo xaggooda laga soo sulaaleeyo laga soo siibay mahiinin oo xaqiir ah daciif ah tabar daran ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqigeenuu dib noo tusaalaynayaa inaan bal is ogaana meeshan asal ahaan ka nimid inaan ogaana waxa nala ka qalqay kibirkeena isqaadqaaditaankeena amar diidadeena rabbi ishor istaagiisa in rabbi subxaanahu wa tacaala aayaadkiisa laga murmayo maanta in badan ay diidayaan ilaahay amarkiisa inay fuliyaan bal dib isugu laabta oo fiiriya alladii ilaahii waaye ilaahay axsana a wanaajiyey oo hagaajiyey kulla shayin shay kasta khalaqahu abuurkiisa wabada'a wuxuu ka bilaabay khalqa alinsaani insaanka abuurkiisa min tiinin dhoobo shay kor jira meehe dhoobadu hoos bay taalaa dadkaa ku dul socda waa lagu dhex socdaa wax kastaa lagu daadiyaa qashinkaa lagu daadiyaa kaasaa laydinka bilaabay khalqigiina ee dib isugu noqda bini aadamow aabbihiin asal ahaan turaab buu ka ahaaday ciid buu ka ahaaday taasuu ilaahay ka abuuray subxaanahu wa tacaala weliba shaydaanka heer waxa uu gaaray nasab dhiman uu ku sheegay aadamka laftigiisa mar allaala markilday u sujuud say ugu sujuudayaa wiil ana khayru minhu anaaba ka fiicane anaaba ka laandheersan waayo macnaha waa nasab dhiman asaguu ula jeedaa waa hadal lagu hadlo oo ugu xun oo caasinimo ah oo rabbi lagu caasiye midka ugu horeeya waa taxqiirka bani aadamka waa in dadka oo imtiqaana la yasay waa in nasab dhiman iyo waxyaabo kale lagu tilmaamay waa inuu qofku yidhi ana khayrun minhu anaa ka fiican mar hadday timaado waa ibliis hadalkiisa waa shaydaan sidaa darteed ummadda xaaladooda ay sidaa tahow in badan ilaahay ka cabsada axadka fadli badan ma jiro xajatulwadaac buu rasuulku taagnaa carafuu taagnaa mar allaala markuu dhahaya dadow rabbigiin waa waaxid aabbihiin waa waaxid aadam baa laydinka abuuray ciiddaa laga khalqay fadli axad kale ka fadli badan ma jiro acjamina carab kama fadli badna carabna cajami kama fadli badna ku aswad ah oo madowna ku axmar ah oo gududan kama fadli badna kan axmarkaana kan aswadka kama fadli badna ilaa bitaqwa allah cabsi ilaahay maahana subxaanahu wa tacaala carafuu taagnaa rasuulka aad buu ummadda maalintaa u wacdiyey mubdac wacdi dheer barnaamij dheer waana iyo gubaabo dheer yuu maalintaa kula hadlay saa darteed ayaa ka mid ahaa in dadka kibirka qabiil kufaanka edab darrada waxyaabaha kala wada inay rabbi intay ka cabsadaan ay iska daayaan xaaladda noocaas oo kale ah waad u jeedaa alladii axsana rabbi waa allaha wanaajiyey kulla shayin khalaqahu abuurkiisa si kasta qofka sida loogu sameeyey yuu ku qurux badan yahay taasuu ku wanaagsan yahay wax allaala waxay noocaa ahaa ee ummadda inay ku cibro qaataanay alla ugu fahmaan loogu talagalay tiibaa caytan noqotay maanta tiibaa qof kasta qof kale ku dhaliilaya tiibaa qof kasta qof kale ku waxaynaya waxa lagu kala fadi bagtaa waa ilaahay diintiisa subxaanahu wa tacaala bilaal wuxuu kaga saro maray abi sufyaan waa alla ka cabsi suhayb wuxuu kaga saro maray ninka lagu magacaabay umay ibnu khalaf waa alla ka cabsi saxaabadii kuwooda lagu tilmaamayey inay liiliiteen
ay koyto ku ahayeen magaalada maka maxay qolooyinkii reer makee dhaadkii qurayshka uga fadli bateen waxay uga fadli bateen saabiqa islaamka u degdega dhibaatada ay u soo mareen say rabbi u rumeeyeen subxaana wa tacaala saa darteed baa qof allaala qofkuu camalkiisu dib u dhigo nasabkiisuusan dedejinayn waxaad doonta ka dhalo meeshaad doonta ka imow mar haddii camalkaaga iyo alla ka cabsigaaga iyo diinku camalfalkaaga uu dib kuu dhigo nasabkaagu ku dedejin maayo ma ku horumarinaayo meel uu ku gaarsiin karaana markaa ma jiro wabada'a khalqa alinsaan insaanka abuurkiisa min tiinin buu ka bilaabay qoobo xaggeeda uma jacala kadibna naslahu faraciisii wuxuu ka dhigay waa bilowgii aadam laakiin faraciisii dambe min sulaalatin wax lasoo miiray ayuu ilaahay ka dhigay oo min maa'in mahiin biyo xaqiir ah intaa ka bacdi maxay ummaddu ku dhalanayaan waxay ku dhalanayaan nudfa waa dhibic biyo ah waxaa laga soo siibay waa jasadka ama waxaa laga soo miiray raashinkii dadka cunaan xaggee buu ka yimaadaa insaanka biyaha laga abuuro waa jasadkiisa xaggee fitamiinka waxyaabaha kale uu ka helay waa raashinka uu cunay raashinka uu cunay dib u fiiri xaggey ka yimideen waa xoolo iyo wax dhulka ka soo baxa labadaa xaalad waaye bacdamay arrintu sidaa tahay yaa xoolaha laftigoodu waxay ku nool yihiin wax dhulka ka soo baxay idan isku soo duuduuba mar walba arlabaad u noqonaysaa minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan uqra saa darteed buu ilaahay insaanka asal ahaanba dhulka uu markaa ka keenay waayo qofka markuu dhinto waad aragtay dhulkaa loo celiyaa ruuxdii kor bay ka timid waa isma lahaa mar allaala marka biyuhu kale ay ku dhacaan oo ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuro oo laga dhiga jasad bani aadam ah oo samaysan kadib baa ruuxda lagu afuufaa ruuxdana si gooni bay u timaadaa jasadkana si gooni baa loo qalqaa ruuxda markay baxda kor bay aadaysaa ilaa halkaasay ka timid insaankii jasadkiisa dhulkuu ka yimid dhulkaa lagu celinaa saa darteed buu ilaahay leeyahay uma jacala naslahu nasligii iyo nasligiisii iyo faraciisii min sulaalatin baa laga dhigay oo laga keenay oo min maa'in biyo lasoo miiray oo lasoo siibay ah biyahaasoo mahiinin daciif ah mahiinku waa waxa xaqiirka ah ee aan sharafta lahayn maradu maanta markay kaa gaarto aqyaamtagu lama soo dhex bixi kartid mar allaala markay maradu kaa gaarto waad isku ilowdo ood aragto adoo saaxiibadaa u sheekaynaya dhag aad idhaha saarto waa la qariyaa la daboolaa sababta waa mahiin waa daciif waa xaqiir waa waxaan wax ahayn kaasaa laga abuuray idan waxaad ku badbaadi kartaa alla ka cabsi waxaad ku sharafoobi kartaa taqwo wuxuu alla kugu kor qaadi karaa iimaan xaaladaasaa la tilmaamaya wabada'a khalqa alinsaani min tiin uma jacala naslahu faraciisiina min sulaalatin buu ka dhigay ilaahay wax lasoo miiroo lasoo siibay oo min maa'in biyo xaggoodaa mahiinin oo daciifa uma intaa ka bacdi sawaahu ilaahay waa ekeeyey biyii markay soo baxeen oo ay ku shubmeen raximkii hooyo waati ilaahay tilmaamay hal ataa cala alinsaan xiinun min addahri lam yakun shay-an madkuuran inaa khalaqna alinsaana min nudfatin amshaajin biyo amshaajahoo isdhex galay isku dhex qaldamay qaarna hooye ka imaadeen qaarna aabbay ka imaadamay kaadaa laga qalqay buu dhaha ilah subxaanahu wa tacaala amshaajin nabatalii fajacalnaahu samiican basiiran intaa kadib waan ekaynay buu dhahay ilaahay uma sawaahu ilaahay wuu ekeeyey oo wuxuu ka dhigay qaab insaan ah wanafaka wuu afuufay fiihi jasadkii dhexdiisa min ruuxihi ruuxdiisii waa naftii wajacala wuu yeelay lakum adinka assamca maqal buu idiin yeelay waalabsaara iyo arag walafidata iyo quluub qaliilan ma waxaa aad u yar inta tashkuruuna aada shukrinaysaan qaliilan waxaa yar maa oo aad u yar tashkuruuna intaad mahad celinaysaan intaad shukrinaysaan way yar tahay buu dhaha ilah subxaana wa tacaala marka la fiiriyo shukrigii aad shukrinaysaan iyo waxa laydiin taray isma laha marka la fiiriyo shukriga aad shukrinaysaan iyo inta kufrinaysaa inta shukrinaysaa yar qaliilan maa tashkuruuna inta shukrinaysaa yaraan badan waqaaluu waxay yidhaahdeen idaa dalalnaa haddaan dhunno oo fil ardi arlada aan ku dhex dhunnoon ku baaba'no lafaheeni iyo kulli arladu ay cunto ina anagu la fii khalqin jadiidin abuur cusub miyaan ahaanayna bal iska daahum ayagu biliqaa'i rabbihim rabbigood la kulankiisay kaafiruuna u kufrinayaan yaa abuura yidhi idinka
yaa dib u soo celiya yidhi awooddooday wax ku tilmaameen awooddooday ku cabireen waa suuragal waa xaq waa runtood awooddooda ma samayn karto laakiin cid ayagu u dirsatoo soo celiya tiri ma jirto rabbi asagaa soo ceshanaya yabda'u alkhalqa uma yuciidu waa bilaaba asaana soo celinaya waxaanu soo marnay wahwa ahwanu calayhi waaba u fududahayba subxaana wa tacaala maa khalqukum walaa bacthukum ilaa ka nafsin waaxid waanu soo marnay khalqigiina iyo abuurkiina iyo soo saaritaankiinu maaha ilaa hal naf abuurkeeda iyo soo saaritaankeeda oo kale maahane waxaan wax culus aad ka dhigaysaan maba cusla waxaan aad weynaynaysaan lama weyno allah subxaana wa tacaala saa darteed bay yidhaahdeen haddaan dhunno oo aan ku baaba'no oon ku xallidsanno oo ciiddu ayna cunto oo aan eber noqono ma abuur cusubna loo soo celina seena loo soo celina ma waxaasaa jira markaasaad naga dhaadhicinaysaan waxay dhaheen a idaa mitnaa wa kunnaa turaaban wa rufaatan a inaa lamabcuuhuun manala soo bixinayaa waxaad dhahdaa buu yidhi ilaahay qul kunuu xijaaratan aw xadiidan aw khalqan akbaru mima fii suduurikum war dhagax noqda ama bir noqda ama wax ka adag badan ilah waa soo celina subxaanahu wa tacaala aw khalqan mima yakburu fii suduurikum fasayaquuluuna man yuciiduna yaana soo celinaya waxay moodeen qof tabar daran oo caajis ah oo aan wax samayn karin waxay yidhahdeen man yuciiduna maxaa loogu jawaabay qul iladii fadarakum awala mara macbuudkii marka hore idin qalqay aaway war aaway macbuudkii idinkoo jiran idin keenay aaway khaaliqii idinkoon ahaynba idin ekaysiiyey nebi zakariya ayaa inta ilaahay baryey yidhi naagteedana waa madhasho ilaahayo anna cudti i oday gaboobaan noqday ilaahu cunug isii ilaahu ii hibay waa loo bishaareeyey yaa yaxyaa inaa nubashiruka bigulaam ismuhu yaxya lam najcal lahu min qablu samiya ilaahu seenu dhalaa buu yidhi see u dhalaa ilaahayo mala yarayna naagteeda mala yarayna seena loo siinayaa see xaaladdu tahay markaasaa la yidhi ilaahay ayaa kuu ballan qaaday waana lagu siinayaa ilaahayna hayin bay ku tahay waqad khalaqtuka min qablu walam taku shay-a war adogu waxba ahayn soo kuma khalqin adoon jiran soo kuma keenin adoo aanba waxba ahayn miyaa hore lagu abuurin ibuu ilah tilmaamay subxaana wa tacaala insaanku muxuu leey wayaquulu linsaan aidaa maa midtu lasawfa ukraju xayan awalaa yadkuru linsaanu annaa khalaqnaahu min qablu walam yakun shay-an asagoon waxba ahayn miyaanan samayn buu dha ilah subxaana wa tacaala see loo diidaa marka in dib loo soo celiyo see buu u inkirayaa in dadka gadaal loo keeno see buu u dafiraa see buu u baciidsadaa see bay maskaxdiisa ula weynaataa tiibuu marka ilaahay noo tilmaamaya wayaquulu wa qaaluu waxay yidhaahdeen a idaa dalalnaa haddaan dhunno haddaan baaba'no haddaan ku xallisannon ku baaba'no fil ardi arlada iyo ciidda dhexdeeda a ina anagu la fii khalqin ma abuur dhexdiisaan ahaanaynaa khalqigaasoo jadiidin cusub bal iska daa inay taa inkiraan ama ay ahaan waayaane hum ayagu biliqaa'i rabbihim rabbigood la kulankiisay kaafiruuna yihiin kuwa markaa ku kufrinaya qul waxaad tidhaahdaa yatawafaakum waxaa idin oobsanaya idin dilaya xayaatada idinka qaadaya malakulmawti malagii geerida alladii kaasoo wukila bikum laydin wakaashay kaasuu ilaahay wakiil idinkaga dhigay inuu xayaatada idinka soo aruuriyo uma intaa kabacdi ilaa rabbikum rabbigiin intii ka ah ama xaggiisa turjacuna laydin celinayaa waxaad usoo laabanaysaan waa ilaahay xaggiisa qul yatawafaakum waxaa idin oobsanaya tah malakulmawti malakulmawt baa idin oobsanaya alladii kaasoo wukila laydin wakiishay oo ilaahay wakiil idinkaga dhigtay hawshaasna u xil saaray uma intaa kabacdi ilaa rabbikum rabbigiin xaggiisa turjacuuna laydin celinaa meesha loo laabanaayo waa ilaahay xaggiisa meesha la aadaayo waa ilaahay xaggiisa meesha laysku abaalmarinayo waa ilaahay xaggiisa meesha janno iyo naar laysugu dirayo waa ilaahay xaggiisa subxaanahu wa tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim alif lam mim ilaahay baa yaqaanaa muraadka uu ka wato tanziilu lkitaabi kitaabka dejintiisu min rabbi alcaalamiina bay ka ahaatay caalamiinta rabbigooda xaggii la rayba shakina fiihi gudihiisa kuma jiro tanziilu lkitaabi kitaabka dejintiisu laa rayba shaki fiihi gudihiisa ma ahaan waana min rabbi alcaalamiina caalamka oo dhan rabbigooda xaggiisa mid ka yimid am yaquuluuna ma waxay odhanayaan iftiraahu asagaa been abuurtay bal iska dhaaf inuu nebi moxamed been abuurto qur'aankaane huwa qur'aanku alxaqu waa xaq oo min rabbika rabbiga xaggiisa ka ahaaday litundira inaad u digtaa loogu talagalay qawman qowm maa ataahum uusan u imaanin
min nadiirin waxdiga min qablika hortaa lacallahum waxay mudan yihiin ayaguna markay maqlaan oo dhagahooda aad gaarsiiso yahtaduuna inay hanuunaani allahu ilaahay alladii waa allihii khalaqa asamaawaati samaawaat ka abuuray waalarda arladana abuuray wamaa baynahumaa inta u dhaxaysa samaawaadkii arladana abuurayoo fii 6 ayaamin 6 maalmood gudahooda uun ku abuuray uma intaa ka bacdi istawaa wuxuu ku ekaaday ilaahay cala alcarshi carshigiisa dushiisa maa lakum uma sugnaanin maa lakum idinma sugnaanin min duunihi asaga sukadiisa min waliyin wax weli ah oo umuurihna maamula walaa shafiicin iyo wax idin shafeeco idinka ergeeya afalaa tatadakaruuna miyaanan waada qaadanay yudabbiru alamra amarkuu ilaahay dabberaa uu maamulaa amarkaasoo min asamaa'i samada xaggeeda ila alardi ilaa arlada xaggeeda ahaatay uma ka bacdi yacruju waxaa u fuuloo u kora ilahi xaggiisa amarkii fii yawmin maalin waa maalinta qiyaamee kaana miqdaaruhu qadarkiisa uu la eg yahay 1000 sanatin 1000 sano oo mimaa tacudduuna kaad tirsanaysaan ah daalika macbuudkaasaa wax u kala maamulaya caalimu alghaybi waa qaybka caalimkoodii waashahaadati iyo waxyaabaha muuqdada alcaziizu waa alla casiiz oo amarkiisu qaalib yahay alraxiimu haddana naxariis badan alladii waa ilaahii axsana hagaajiyey wanaajiyey kulla shayin khalaqahu shay kasta abuurkiisa wabada'a ilaahay wuu bilaabay khalqa alinsaani insaanka abuurkiisa min tiinin dhoobuu ka bilaabay uma intaa ka bacdi jacala wuxuu yeelay naslahu faraciisiina min sulaalatin wax lasoo miiray oo min maa'in biyo xaggooda laga soo siibay mahiinin oo markaa xaqiira ama daciif ah uma intaa ka bacdi sawaahu ilaahay waa uu simay dhibicdii oo wuxuu ka simay bani aadam wanafaka wuu afuufay fiihi wixii uu simay dhexdiisa min ruuxihi ruuxdiisa wajacala wuxuu yeelay lakum adinka uu idin yeelay assamca maqal aad wax ku maqashaan waalabsaara aragtiin aad wax ku aragtaan waalaf'idata iyo quloob qaliilan waxaa yaroo aad u yar maa tashkuruuna intaad shukrinaysaan waqaaluu waxay yidhaahdeen a idaa haddii anagu dalalnaa aan dhunno oon ku baaba'na fil ardi arlada dhexdeeda a inaa anagu la fii khalqin abuur dhexdiisa miyaan ahaanaynaa abuurkaasoo jadiidin cusub bal iska daaya hum ayagu biliqaa'i rabbihim rabbigood la kulankiisay kaafiruuna ku gaaloobayaan qul waxaad tidhaahdaa yatawafaakum waxaa idin oofsanaya idin dilaaya xayaatada idinka qaadaya malakulmawti malagii geerida alladii kaasoo wukila bikum laydiin wakiishay wakiil alla idinkaga dhigtay idinka inuu xayaatada idinka soo gurbiyo uma intaa ka bacdi ilaa rabbikum rabbigiin xaggiisa turjacuuna laydin celinayaa meeshaad u laabanaysaan dhammaantiin waa ilaahay xaggiisa subxaanahu watacaala walow taraa id ilmujrimuuna naakisuu ru'uusihim cinda rabbihim rabbanaa absarnaa wasamicnaa farjicnaa nacmal صaalixan inaa muuqinuuna walahu subxaanahu watacaala